بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. وافري لباتنكي بشي تطبعات لباكن يلحية طبعا هالكن waxaan kusoo gudbinaynaa maanso magaceeda la yiraahdo gadaal noqod waa maanso dhacdo xaqiiqo ah oo dhaba ka hadlaysa laba qof oo isjecel ayay khusaysaa sheekada maansadaas ku timi waxa jiray laba qof oo isjecel oo dhalinyaro ah oo haddii ilaahay badankeeda leeyahay xoog kalgacal wanaagsan u dhex yaalay kala magaalana jooga inkastoo isku waddan joogaan haddana markaa laba magaalo kala fogeyn jooga inuu isagu yimaado oo waddadun soo hayo iyana marmar booqataba waxay aakhirkii ka door bideen inay dhinac isugu guuraan inankii reerkii buu u yimi gabadhii buu ka doonay si qurux badan baa loogu meheriyey maasha allah muddo bilaa kadibna wuu wareejistay si fiican bay u degeen inanku laba shaqo ka shaqeeyaa mushahar wanaagsanna wuu qaataa xaqiiqo uma wada sheegin mushaharka xaaskiisa intuu qaato laakiin qayb fiican buu uga sheegay oo markaa ku noolaan karaan qaybta kale wuxuu sameeyaa meel buu dhigaa hanti meel u taalluu ka dhigtaa oo meel buu ku kaydiyaa waxoogaa markay kaydsantay gabadhii koowaadna magaalada ay ugu dhalatay ayuu magaaladii uu inanta ka soo guursaday oo Hargeysa ayaa oo aadna u jecleed inay degto ayaa wuxuu ka bilaabay inuu dhisme guri lacagtii buu u dhiibtay qof ay xisbiid halka guri iga sameey buu ku yiri lacag badan oo fiican bay ahayd inana iyada habarudaagihiin gabadhiisa ayaa waxay ka warhashay gurigan agteeda laga dhisayo inuu leeyahay ninka habarudaagteed qaba habaryarteed oo isagana soo dohdiyaba u sheegtay waxay ku tiri oo inankii inanta ka qabay inanteena qabay guri buu agteeda ka dhisanayaa warka saasan ku haya waan hubaa islaantina inanteedii bay habeennimadii la shaaxto oo guri halkan ka dhisanaysa bajtay ma jeero ninkaagu dhisanayo waxay tiri dameemoogi habeenkii markuu soo hoyday ninkeedii ayay weydiisay arrintii uu yaabay yaa ku sheegay buu ku yiri waxay ku tiri hooyaday waxa uu sheegtay habardaagti wuu ku yiri macaan wuu jiraa gurigaasi inaan kadis kaaga dhigaan doonayay waadigii jeclaa waadigii magaaladayna degta jeclaa sidaas dhacday inantii lababo dhinac way ka faraxday waxay aad ugu faraxday sida ninkeedu dhinacna way ka yaabto awoodda intaa qarimeed ee ninkeedu leeyahay dhinacna way ka yaabtay waxba biliya wax kadib way soo guureen magaalada Hargeysa soo degeen muddo halkan markii ay deganaayeen baa inan ugu dhashay inantii hore lahaayeen soo labayay guuleed baa loo bixiyay yarkana intaa kadib waxoogaa qaadu awalba qaadka waa cuni jiray marmar waxoogaa cilada oo jaadkii u dheer ayuu inankii la soo baxay waa dhalinyaro meel lagu balwadda jaadka la yidhaahdo lagu isticmaalayay ayaa yarkaa waxa ka jeclaatay gabadh inantii inankaa ka jeclaatay waxay ogtay inuu reer leeyahay si jacaylkeedu iyada nacamti rabitaankeedu jacayl ma waa guri reer laba ayuu ahaa inankaa damca inantaa ka galay wuxuu inantaa ku keenay inay qudheedu iyadu horta nafteeda dhisto laba cishuu dadkii gabadhii meesha ugu muuq dheereed bay hayda laba cishuu yidhi umeeda heblino ilaahay badankeeda leeyahay waxay ka door biday inay dib wax dhigashay dib u gashay dad asxaabay hayna telefoon laga wada hadli waayay maayo walaal waa nabad oo khayr oo saaso walaalo gabadhu waxay iibsatay telefoon cusub waxay bilowday inay dani geliso gabadha ninkani qabo si uu banaanka
ugu soo baxo reerkuna u burburo telefoon iyo kaadh cusub iibsatay reerkii deganaa dani baa bilaabmay gabadhiiba message u qortay waxay u qortay ninkaagu suuqa ku jiraa dee maadan ka qabatid waa ku boodinay bay weliba u raacisay hubi gabadhii gurigeeda haysatay waxay bilowday dani aan weligeedba ninkeeda ka gelin dabagal bay bilowday oo gabadhi marka ninkeedu dee lacag badan mushaar u qaatay lacagta guriga laga dhisay baaqi ahaan jirtay dee uu ka qalan jiray beriga hore imika dee facility waayi maysa iyo wax u fududeeyeen dabagal samaysa gabadhaasi waa daba gashay ninkii waxay soo xaqiiqsatay in arrintaa wax ka jiraan gunsa ugumay dhaadhicino dee ninkeedu saaxiibo leeyihin inuu dumarkan may hubin laakiin inta guud in dumar meeshaa jiraan in ninkii balwadda jaadka la yidhaha dumar u dhee waxaa way ogaatay habeennimo ay arrintii habeenkii ugu dambeeyey soo hubisay ayay guriga ka hortimi waa ku sugtay isna waa yimi cashadii bay siday u siin jirtay deganeed u siisay labadan qofba dabeecad ahaan waa dad aada u degan buuqa iyo qaylada iyo waxa aan ku wada joogin iyo ismaandhaafka faraa badan leh cashadii markuu dhameeyay tiri caawa waxaan kaa leeyahay arrin aanan hore kaaga yeelan yaab isidhi arrinka ay gabadhaada weligaa hore kaaga yeelan muxuu yahay haye fadhigoodii bay iska tageen inta cuntadii ka kaceen waa la fadhiistay waxay ku tiri waxaan doonayaa warqadaydii inaad siiso yaa buu yidhi warqadaydii baan doonayaa bay tiri inaad siiso wuxuu yidhi maxaa dhacay waxba waxa dhacay adna waad ogtay bay tiri anna waa ka war helay meeshana kalsooni baan ku wada deganayn kalsoonidiina waa burburtay masaajidka imika haddaad tagto waxaan is odhanayaa halkii unbuu ku maqan yahay war ninoo dumar baad baratay warqadaydiisii garay inay wax dhaceen garay inay wax qaldameen arrin inay isa seegtay garay allana inuu xil qarin waa garay gabadhi wuxuu ku yidhi bal isyaradda joogo waan may bay tiri yaan dumaroobin weli waan buuq yaray wuxuu ku yidhi ma sidaas ahaa weliba haddaad warqadii waan rabaa carruurtaydana waan doonaya wuxuu ku yidhi carruurta gurigan iyagaan u dhisay labadan ciddii ku haysanaysun baana deganaanaysa maan kaaga baxaa carruurtaad ku haysanaysaa mise go-aankaasaa kaa dhaba mee kaasaa iga dhaba bay tiri caawa iska seexa buu yidhi waasin lahay inoo beriye bal fikir waa iska jibsatay hurdadeediisna fadhigu iskaga gami maayo dee uu isku rogrogay habeenkii oo dhan waagu markuu baryuu sanqadhii albaabka hurdada maqlay oo soo baxay shantadeedii baabay sidataa waa diyaar wuxuu ku yidhi ma sidii baad kaga dhabaysay haa bay tiri halkaa waxaa ku jirtoo ka horeysay lacag yar oo ay u haysay waxoogaaya ayay tiri lacagtanna waa lacagtaadii kaydka ahaydeen kuu hayey wax iga sii weliba way kala qaybsadeenoo weliba ii kordhi bay tiro lacag fiican buu siiyey subaxii waa tan baxday gabadh baa jirta ay inanta walaalayiin inankana isku fiican yiin oo ixtiraam badan isku hayaan wuu la hadlay labadooduna waxa ballan u sii ahaa oo halkaa ku jiray balay xil qari intada ma soo noqonayso ama ilaahay disuune balaynu su xil qarino reerkii way tagtay waa gabadh isku filan garaadkeedu ku filan yahay caqligeedu ku filan yahay su'aalo fara badan lama weydiinayo waalid aada u sii mudano na hooyadeed baa joogta islaantiina laba jeer markii su-aashii weydiisay hooy aniga waxaan iska iloobay tiri anaa reerkayga awalna haystay iminkana sidaan ugu talagalaya dhowr cisho kadib inantii bay wada hadleen u dumaashidaad waxay tii warnigo gabadhaadi inay tahriibtay rabtaa garay lacagtii ay ka qaadatay inay badh ku darsato ay tahriibayso halkaas markay marayso tale laga yeelay qof buu u warramay waa la iswaraystay gabadhaasi ay walaaleeyihiin gabadha ayaa uu ninkii gartay waxa dee inay raacdo wuxuu lacag baan kuu soo dirayaa ilaa dhiis raac iiga warhay afkeenna waa isku amaan waaye bay tiri waa duni mobile laga isticmaalayo dee internetkii oo meel wax laysaga diri lama waaye maantaan baxnay markay tidhi ayuu subaxii ku xigay isaga iyo labadii ciyaar ahaaba isna Addis Ababa u qorshaystay inuu u baxo waa u baxay Addis baa la isugu tegey halkiisii dee whatsappkeedii iyo fiberkeedii wixii buu ka yidhi xaggee degantiin dimaashaan halkaasaan ku soo degay waan joogaa magaaladii annana halkaa ninkii rarayey iyaga
ayay u soo heshay waxay tii ninka noocaasa raraya ninkii buu tagay intaa aan ka warramay buu uga warramay wuxuu yidhi nin gabadhaasi dadkaad raraysa ka mid tahay gaadhigaa aad saarayso gaadhi aan ahaynoo raacaya ma jira haa dadku way badan yihiin laba baabuur baa baxaya kaa dambe isaar buuri aniga carruurtan ay barbar soconayaan habeen madow baa magaalada Addis Ababa reerkaa laga raray iyagoo isu dhan guura habeenkii oo dhan lahaa meeshii dadka lagula wareegayey haddii ilaahay badankeeda leeyahay baabuurtaasi ku eegayd ayaa lagu dejiyey dadkii baa meel dee kolley la isugu geeyey isu soo fakaday iminkoo dadku isu yimaaday carruurtii waa carruur yaryar yarkii baa ooyey ooyintii inanka dadkay ka dhex maqashin kastoo aan la hadlayn oo la dhuumanayo oo la aamusan yahay oo meeshu dad dee soconayo dee dhuumanayo xadadu kala gudbaya yihiin ooyintii ilmaha way garateen ilmaheedii gabadh dhinac fadhida bay ku tiri warniyo ilmaha ooyayaa ilmahaygii buu codeegay inanay wada socdeen oo iyada inantii ay walaalahayeen dee adhiis bay kaga hadhay oo way noqonaysa laakiin gabadh kale ay wada socdaan markaasoo dee intan asbartayta carruurtaasi carruuran dhalay bay u ooyinayay ilmahaas laba jeer markii ku celisay tiri gabadhii gabadha saaxiibadii ka soo xigtay waarday carruurtan ooyaya maadaama siisi maan hooyadood la socon dhowr qof baa yidhi maan hooyadood la socon ma lama odhan waxay waar carruurtan ooyaya de maadaama siisid hooyadood meeday maxaad uga keentay wuxuu yidhi way nala socotaa gabadhaasi markay maqasho way nala socotaa bay garatay inuu isagii carruurtaa weysaan carruurteedii way booday habeenkii madow carruurtii isku dhintay xaaladdii meesha isbedeshay hadalkaa intii ka batay dadku way garteen in labadan ciyaala gabadhan dhashay gabadhan iyo ninkana aanay sogeyn waa sideedii day tiri iyo wixiina wuxuu yidhi de xaggeen ku hadhnaa afar habeen qaladaan sameeyey oo la sixi karo oo geeri dhacanan labadeennaba noolna waxana aan sixi karayaa reerkii dhammaa iyo gurigii dhammaa ugu timi meelaanu kaaga hadhnaa ma jirto meelaan kaaga hadhaynaa ma jirto waanu ku raacaynaa ama inagu shubadda ama ina celi dadkii goobtaa joogay wax ooyey wax yaabay wax hadalku ka soo bixi waayey 100 nooc bay noqdeen isagoo hadlaya weeye maansadu iyadoo hadlaysa wuxuu yidhi inkastoon gaf weyn iyo khaladaad mi aan galay inkastoon ku gaasiray kuu geystay niyad xumo inkastoon ka gaabiyey geedigeenni nololeed inkastoo aan gees maray wakhti kooban guushii inkastoon gunaadkiiyo gardarrada aan leeyahay adoo gaari ii nugul anigoon guhaad qabin adoo gaajo igu hayn gogol xumo anoon arag adoo gacladayda gabadhayda curadiyo guuleed adoo dhalay waxaan ahay ninkii galay waxaan gaarka kaa dhigay waxaan ahay ninkii gabay qoyskiisa eeganay hankii guudka saarnaa ninka geeyey hoosee gunda keenay baan ahay ninka guunyo haystee isagoo ay garab taal gorof caydha qaadiyo gacmo hoorsi rabay ee aad ka gaadhay baan ahay ninka gubay ka shaadee misna kaa go'aynee kuu golongolaan ahay ninka godobta qaatee gashi baxaya baan ahay ninka gelinna kaa hadhin ee ku garab socdaana ilaa halkan aan kaa hadhin adiguna go'aankiiyo qofkay tala u gudubtee gacantiisa ku hayee arrin goynayaatee caawa laba miduun gaadh anigiyo garboodkii ama liibiyaad geyn ama waad gadaal celin talo aday ku joogtaa buuri waxaad yeelaysaana aday kuu taallaa hooyadaa halkaa joogta habeenkaa midow iyo ninkaa gabadhiisaa uu jecel yahay ee isku midkii yaa ubadkiisana uu hooyada isna uu jecel yahay uu ka hadhi kari waayo waxay tidhi waxaad tahay garaadkii laantu geedka saarnaa ku garaacay gudintee garan waayey yaad dhicin gaadiidkii reerkiiyo gurgushaagan riran jiray ninka gini ku rabayee geeye sayladaata ninka gini ku rabayee geeye sayladaata inkastoo aad ii gudin abaalkii aan kuu galay inkastoonad ii gudin
abaalkii aan kuu galay goobtan caawa joognaa qalbigaygii kaa guray dib u soo godlay tidhi soo gaaxabay tidhi gafku wuu dhacay tidhi ha ka goosan bay tidhi ha ka gaabsan bay tidhi ha giriifin bay tidhi ha gumoobin bay tidhi waana geesi bay tidhi u gadaal noqoy tidhi daagocashaday tidhi laabta soo gashay tidhi uu macnaheedu yahay qofka aad aadka u jeceshahay ama aadka aad u jeceshin hadduu ku dhirbaaxo oo kugu weyntay dhirbaaxadu aad kugu weyntay gacan intuu ka xumaado gacantii uu kugu dhirbaaxay dab geliyo halkan yaala wax laga yaabaa inay dhirbaaxada ku dhadhamin gacantaadana haddii taa far laga gooyo tanun baa qabanaysa laakiin tii haysay haddii saddexdaa laga jaro tii fartu ka gonayd unbaa tan saddexda qabanaysa u gurmanaysa qaadkii dhacay mid ka weyn wax ka weyn baa sixiisii noqday ilaahay isu barakeeyo qoys aniga ii gaara yihiin wanaad u jecelahay fasaxoodaanay maansada ku soo baxday ilaahay daayo maasadina halkaasay ku dhantay gadaal noqon wanaad salaamantii